Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabtiina youtube-ka ku xiran baarka 252 meel kasta ay joogtaan. Baraqo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Haddaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ay kuusoo gaaraan muuqaalin soo socda. Muuqaalkan share dhaha mahadsanidin. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa caawa soo dhawey doonta kooxda Napoli lugta labaad wareegga 16 tartanka xiisaha badan UEFA Champions League. Labada kooxood ayaa lugtii hore kusoo wada ciyaaray garoonka San Paolo Stadium. Gool ayuu kusoo dhamaatay. Caawa ayay wada ciyaari doonaan ee taariikhdu ku beegan tahay 8 Agoosto 2020. Barcelona ayaa Napoli kusoo dhawey doonta garoonka Camp Nou Stadium. Ciyaarta caawa labada kooxood Barcelona iyo Napoli ayaa la daawan doonaa caawa 4 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika. Waa soo saadaali kartaa kulanka xiisaha badan Barcelona iyo Napoli lagu ciyaari doono garoonka Camp Nou Stadium. Haddii aan fiirino waxyaabaha ka cusub kooxda kubadda cagta Barcelona, kulanka caawa Barcelona waxaa seegaya laba xidig kuwaas oo ah Arturo Vidal, Sergio Busquets. Kulanka caawa ganaax ayay kaga maqnaan doonaan kooxda kubadda cagta Barcelona. Anthony Griezmann ayaa kooxda dib ugu soo laabtay. Kulanka caawa kursiga keedka inuu kusoo bilaado ayaa laga yaabaa. Kooxda waxaa dhaawac kaga maqan xilli ciyaareedka inta ka dhiman Samuel Umtiti, kaasoo kooxda dib ugu soo laaban doonin. Haddii aan fiirino kulanka caawa waxyaabaha ka cusub Barcelona iyo Napoli oo wada ciyaari doonaan. Chelsea waxay la ciyaari doontaa caawa kooxda Bayern Munich. Bayern iyo Chelsea kooxdii soo badiso ama soo baxdo midkood waxay la ciyaari doonaan Barcelona iyo Napoli. Tusaale ahaan Barcelona hadday soo baxdo, Bayern hadday soo baxdo, Barcelona iyo Bayern Munich ayaa isku aadi doona wareegga 8-maadka tartanka xiisaha badan UEFA Champions League. Soo socdaal kulanka xiisaha badan caawa Barcelona iyo Napoli ay wada ciyaari doonaan garoonka Camp Nou Stadium. Saacadu markay tahay 4 saac oo habeenimo ayaa la daawan doonaa ciyaartaas. Aragtidaada dhanka commentiga noogu soo reeba. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Intaan muuqaalka xiga isku arki doono. Sidaas iyo nabadgelyo.